maanta waa maalin taariikhi ah oo runtii qof walba halkan fadhiya uu nasiib u yeeshay inuu ka soo qayb galo aniguna inaan saxiixo bacdama aan ka shaqaynayna muddo 2 sano iyo xoogaa ah maanta uu soo gaaray inaan helno toolkii ama qalabkii qofkii moralkiisa celin waaya uu sharciga celiyo sida uu noo sheegay Sheekh Baaruud diinteenu waana faraysaa in aan ka fogaano wax alla wixii qaloocan wax alla wixii diinteenu diidan tahay musuqmaasuqa ma aha kaliya lacag la xado musuqmaasuqa waa qofka positionka uu joogo si xun ugu takrifala oo personal level ah isagoo ilaahay ka baqaynin isagoo mas'uuliyadda loo dhiibay aan tixgelinayn waa xaqiiqa inaan annaga aan kaga jirno meel hoose weliba waa la duduubay oo 10 ugu hooseysa la yiri laakiin in la cadeeyaa fiican si aan meeshaan joognaan u ogaano numberka ugu hooseeyaana 194 dal yaa adduunka jira waxaan nahay 194 wasiirka dalka uu tagay oo uu sheegay oo ah Denmarkna waa number 1 waana dal Kristaan ah annaguna waxaan nahay dal muslima oo dhaqankii islaamka laga rabay inuu sameeyo oo ah wax alla wixii xaaraana inaan ka tagno waliba amaanadu kuma jirto oo waxa cad qofka inuusan marin siraadul mustaqiim xitaa inuusan marin dacwadii xitaa inuusan tagayn haddii lagu leeyahay deenna ma aha macnaha qof kaliya maxaan ku raahdaa deen kugu leeyahay ma ahee waxaa deentaan kugu leh qof kasta oo nool iyo qof kasta oo noolaan doona marka ma gaari kartid qof walba inaad cafis weydiista marka annaguna runtii bacdama muddo dheer aan dhib ku jirnay marka qofka la yiraahdo waxaani xaaraan weeye waxa uga xanuun badan dhibka markaas uu ku jiro marka wuxuu kala doortay markaas inuu gaajada ka baxo iyo maxaan ku raahdaa dalkiisa inuu xumaado oo uu noqdo dalka ugu xun ugu musuqmaasuq badan iyo aakhirada inay u dambayso oo uusan janno gelin inta badan waxaa la yiraahdaa dadka musuqmaasuqa u faradhuuban ama u badan waa dadka dawladda u shaqeeya xaqiiqo ma aha waxaa ku jira ganacsatada oo haddii ay ahayd inay canshuur bixiyaan canshuurtooda qariya oo aan sheegin wixii waxbaa lagu ballamay waxaa lagu ballamay intaasoo percent inaad bixiso hadduu kala qariyo waa musuqmaasuq markuu kala qaranayana musuqmaasuqu dawladdu ku darayaa culays kala saaraya maxaa yeelay ninkii qaadayay yaa laga yaabaa inuu laaluusho marka wuxuu ka yahay qaybta ugu muhiimsan yuu ka yahay qofka ganacsatada ah haddaan dhaqaale la helin amni ma imaan karo waxay taabanaysaa waxbarashadii waxay taabanaysaa biyihii la cabaayey waxay taabanaysaa horumarkii kale waxay taabanaysaa caafimaadkii wax walbay taabanaysaa marka meesha ay wax ka bilaabanayaan waa qofka canshuur bixiyaha ah